madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa khamiistii ku hanjabay in uu eri doono safiirada dalalka Mareykanka, Jarmalka iyo 8 kale oo reer galbeed ah kadib markii ay soo saareen war-saxaafadeed wadajir ah oo ay ku taageerayaan hogaamiye kamid ah bulshada rayidka Turkiga. Osman Kavala oo ah 64 sano jir Turkish ah oo ku dhashay Paris ayaa xabsiga ku jiray tan iyo sanadkii 2017 isagoo oo aan wax dambi ah lagu helin. Waxaan u sheegay wasiirkeena arrimaha dibadda in aan u heli karin qanacsanaan aan uga martigelino dalkeena, ayuu ku yiri Erdogan hadal ay ka soo xigteen warbaahinta dalka Turkiga. Kavala ayaa wajahaya eedeymo dhowr ah oo la xiriira dibadbax ka dhan ah dowladda oo dhacay sanadkii 2013 iyo sidoo kale afgambigii dhicisoobay ee isna dalkaasi ka dhacay sanadii 2016. Kavala waa uu beeniyay gebi ahaanba eedeymahaasi. war-saxaafadeed ay soo saareen Isniintii ayay safiirada dalalka Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden iyo sidoo kale dalka Mareykanka waxa ay ku baaqeen xal cadaalad oo degdeg ah oo laga gaaro kiiska Osman Kavala. Erdogan ayaa muujiyay sida uu uga careysan yahay hadalka safiirada isagoo oo wariyaasha la hadlay xilli uu saarnaa diyaarad ka soo celisay safar uu ku tagay qaaradda Afrika. Ma ku jira xadkaaga inaad cashar noocaas oo kale u dhigto Turkiga? yaa tahay adiga, ayuu yiri Rajab Tayyip Erdogan oo hadalkiisa uu baahiyay ama siiyay telefishinka NTV. xiisadan cusub ayaa mugdi gelinaysa kulan la qorsheeyay oo markaa dalalka G20 oo toddobaadkan soo socda ka dhacaya Roma, waa caasimada dalka Talyaaniga halkaasi oo madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan la filayo in uu kula kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. labada mas'uul ayaa leh xiriir aan wanaagsanayn marka loo eego kii adkaa ee ka dhaxeeyay madaxweyne Erdogan iyo madaxweyne Donald Trump kii xukunka laga tuuray. golaha Yurub ayaa ka digay inay bilaabi doonaan dacwad edbina oo ka dhana Turkiga haddii aan Osman Kavala la sii daynin ka hor kulanka golaha midowga Yurub ee November 30 ilaa iyo bisha December 2. maxkamadda ayaa mar kale kiiska Kavala dhageysan doontaa 26 bisha November ee soo aadan.